الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دنيا وين السلام يا محمد بلعبنا ما عشر جديدة أو سفيرتي الصلوة السماية how to prepare asphalt سلايدين مقطع وأقواس سنبلادي ودن وأقواس سفيرتي كجرجيتي ولا بقى يو سفيرتي لما وأقوايدين مغلى marka hadda waxaan sameynaynaa horan soo tameynay sif analysis kadib waxaan soo helay nisbadii percentage-kii isu keenayay sfiltigii waxaa sheetkaas inay muuqdeen kor u qaaday sheetkaas waxaa caddaynaya markaas in ay habkii laisku rakibay haddaan isku dardaraynaa percentage-kii waan isku dardaraynaa mid kasta miisaankii batchigii ugu ay soo saarayay halkii tan ayaan xisaabinaynaa marka waxaan qaadaynaa kimiyad yar si cube ahaan baanu sameynaynaa marka nisbad kasta percentage nooc kasta wuxuu leeyahay percentage gaara hadda waxaan misaaminaa dhagaxii weynaa ugu sarreeyay waaweynaa waka kii labaad ba haddana ku xiga mid kasta miisaan buu leeyahay qayb yar oo mataraysa weeyaan percentage-kii weynaa maaha markaa qayb yar oo mataraysa weeye tan kii labaadna waan miisaanay dhamaystiranay markaa miisaanaba waa miisaanka zero baan ka dhigaynaa si ka labaad miisaankiisa oo saafi u qaato haddaba ka crashing sankii waan miisaaminaa hadda hadduu ziyaado ku yar noqdo waad ka qaadaysaa daruuri waxaa loo baahan yahay inuu noqdo garaamka mid kasta inta garaameed ugu talagashay percentage-kaa siisay waxaasoo dhan xisaabaadkana descriptionka hoosta youtube-ka ayaanu ku cadaynayaa waa kawaan zero baan ka saaray haddana waxaa haray maadadii madoobeed ee sfiltigii madoobaaba haray kaasna hadda ku daraynaa marka waa kulul yahay isagu wata haddaan ku daraynaa markaan ku darro isku wada geyno waxaasoo dhan waxaan saaraynaa dab baan saaraynaa wuu isla kululaanaya markaa waa liquid waaye waa kii madoobaa jaygii oo laba nooca iyo crashing sankii oo meesha taalay iyo sfilti afartaa nooc oo isku daray sfiltiga liquidka haddii nagaga yar bato maalan miisaanka warqad yar baad qaadan waa dhexgelin isaga markaa saad wixii ziyaada uga soo qaado mid kasta percentage buu leeyahay percentagekaas waxaan kusoo helay sif analysis specificationkii lagu siiyey mashruuca lagu siiyey ayaa waxaa weeyaan wakaata waxaan gelinaynaa meesha gelinaynaa filtiga wixii ziyaada noqday garaamkiisii wixii ka batay baan kasoo saaraynaa wataa dab baan saaraynaa dhammaan waxaa loogu talagalay in oven la keeno ama forn waxa la yidhaahdo laakiin waxa weeyaan ma haystaan qoladan aanu shaqeyno hadda samey markay yidhahdaan kolba wixii aad awoodaad ugu sameyn kartaa yani wixii maahan daruuri oven hadduun haysan maxaad sameyn waxa weeye shawladaasaa lasoo iibinaya meesha waa isku kululayn waa laisku kululaynaya hadda isku laaqaynaa dhammaan iyadoo dabbaa hoosta kaga socda shawlad way shidan tahay waan yar xabeebsanaya garaalihada soodkuna waadax maaha isku laaqan hadda waan yar joojinaa videoga marka iyadoo dhamaystiran baan hadda soo waatan iyadoo diyaara hadda wataas idin muuqata sfiltigii oo dhamaystiran oo isku laaqan oo diyaara saasuu soo baxaya markaad isku dardarto waxaa isku dardarto saasuu soo baxaya waa percentage lagu talagalay waxaad ka bilaabaysaa matalan 4% 5.5 6.5 ilaa uu liquidku ku bato markaasaad ka joojin markaa waxaad qaadanaysaa ta ugu awood badan doctor waa cajiradii way badan tahay sfiltiga laakiin hadda waa how to prepare bas saddexdaa number baan sameeyey waa 5 iyo 5.5 iyo 6 markaa waxaan qaatay tii ugu fiicneed baad ka qaadanaysaa markaa saa ula soco waa kan hadda waxaan geynayaa operatorkii waan geynayaa masnacii baan tegayaa ama factory baan tegayaa
nambaradii baan siinayaa, nambaradii yuu jahaas gelinayaa, saasuu soo baxaya marka. waa kaan factory baan hadda joognaa. factorygu markuu shaqeynayo markaas hadee nambaradii uu meel gelin, jaydii iyo waxoo dhan meesha ku jiraan waa dhammaystiran yihiin. waan soo qaadnay haddana laamigii oo goobo aan ku sameynayno dayactir ayaanu imanay. waa kan hadda waan googlaynaa. laami jiida maaha, laakiin waxa weeyaan goob lagu sameynayo bas dayactir. waa ka waan taaganay aniga lafteydu. marka preparingkiisii sidaa nii soo sheegay ayay ku dhan tahay. marka baaritaano badan buu isugu leeyahay marka la baarayo. waata temperatureka waa kaas baalkaan sitan waa temperatureka qiyaasaya. waxaa loo baahan yahay inuu 150 yani ugu yaraan 90 waa la gogli karaa. marka waxaa jugeyn baa lagu sameynayaa. birtaayana waad inii muuqata. marka la dhigo goobtiis baalka la dhigo waxaa lagu jugeynayaa baashaas. marka description-kan xisaabtan habkaad u soo saaraysa halkii tan ama aad u miisaamayso jayadan isugu dardarayso, jeegan iyo saanka isugu dardarayso isfiltigana description-ka hoostaan ku cadeynayaa. marka la socda insha allah. sieve analysis-kaas darsi cashirka cadeynayana waan hoostaan idinku dhiga description-kan linkigiisa inii soo qori. warqadan aad diyaarinaysa oo sieve analysis markaad diyaarisatan tan aad usii xawiil haddana waa specification-ka labada gees ee cirifka waa specification lagu siiyey ta gudaha ina heshay waa excel baa lagu sameynayaa wax. marka tafaasiil dheeraad u baataan insha allah waan ila joogaadi. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan salaamay dhammaan.